kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka SBC oo barnaamij toddobaadkiiba mar aad kala socotaan xarunta labaad oo TV ku leeyahay magaalada Muqdisho. Toddobaadkan barnaamijka waxaa idin soo saaray idin la socodsiinaya anigoo Cabdirashiid Sandheer ah. waxaana kumanaan jeer kaga mahadcelinaynaa siyaasiga Maxamed Cali Yarow oo toddobaadkan studio nagu soo booqday kana mahadcelin waqtigeeda. ugu horreyn siyaasi soo dhawow SBC xarunta labaad TV oo Muqdisho ku leeyahay kusoo dhawow waana ku mahadsan tahay martiqaadka ku fidnay iyo qaabka u ajiibtay intaba. أنا مدن وريها عبد الرشيد سندرة وهم هاد عليا صاحب كي مختار أو أدي سوجيدي يو هو TV SBC حرمي سكردون أديت بعدين كم هاد عليا عزومات عزومتين يدو وري بمقارنة سا حلي كلها حاجة الوجود ما شاء الله حاجة كلها الوجود مركا ما سنته thank you ما سنته سؤالين أو قد قلنا سياسي ugu horeen si kooban Maxamed Cali Yarow halka ku dhalatay taariikhda dib kuugu celiyo halka wax ku soo baratay dugsi quraanka ilaa qof siyaasi ah ilaa heer musharax madaxweyne gaaray bal soo dhaw taariikhda dib loo xasuus anigu magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cali Yarow waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose hadda loo bixiyay Jubbaland magaalada meel gaarkeeda waa leeyahay waxaan ilaa iyo dagaalada sokeeye ilaa 93 meelahaas waxaan joogay dalka wixii ka dambeeyay waxaan kamid ahaa dadkii ka qaxayama wadanka ka qaxay oo xariyaha qaxootiga dhadheeb ku soo koray oo wax ku soo bartay macallin iskuul ka noqday kadib haddana ka dhoofay Mareykanka tagay wax ku bartay muxuu ahaa jaamacadeedii kuwa San Diego City College mid la yiraahdo oo California ku taala tayadii labaadna Morehead State University ayay ahayd oo North Dakota ku taalo marka Morehead Minnesota ma la yiraahdo adugu waxaan ahaa qof ganacsade ah oo self employed looga yaqaan Mareykanka muxuu ahaa logistics and transportation business la yiraahdo ayaan ku jiray marka muxuu ahaa dalkana aad baan u soo noqnoqonayay marka taas waxaan isiri at least bal muxuu ahaa dalkii maadaama aadan waqtigii dowladnimada aadan ka faa'iideysanin bal ilmahaaga dhaxal u reebtid dhaxalkaas oo ah ma garanaysaa dhaxalka ugu wanaagsan oo ilmaha loo reebo waxa weeye nabadda weeyaan iyo dowladnimada marka waxaan soo go'aansaday in bal ilmahaygii aan dhaxalka aan u reebo dhaxalkaas oo ah ma aha dhaxalka guri loo dhisay iyo baabuur imaha balse dhaxalka waxa weeyaan identity-ga qofka jinsiyadiisa ayaa mid ugu weyn ah maadaama marka ilmihii qurbahan ku dhalanay at least bal in dalkii aan magaranaysaa aan jufno nabad uga dhigno si ay u dhahaan bal dalkaas aan leelnahay oo dalkooda imaan karaan ay ku noolon karaan maadaama anaga fursad aan helin bal inaan waqtigeyga iyo nolosheyda geliyo dalka Soomaaliya taasaan markii magaranaysaa hadda meeshan u jooga taariikh nololeedkaada marka waa maasan tahay siyaasi su'aalaheena ugu dugalayna markaan su'aasha koowaad haddaan ku weydiiyo muddo dheer dalka ka maqneed oo jaamacadda dalka Mareykanka wax ka soo baratay qof siyaasiin ahaankaas oo ku jiraato wadanka waa imaatay marka Soomaaliya muddada dheer ka maqneed bal sawir guud naga sii yani marxaladaha soo martay waa dareemaysaa dawladda badan isbedelay xukuumadda badan isbedelay siyaasiyiin badan isbedeshay wadankan yani laga yaabo 96 xilliyadii ka hor xilli colaadeed ahayd haddana yani wadankii nabadgelyo iyo amni iyo waxba ku soo noqday marka bal adoo sawir guud ka bixinay bal ka waran wallahi Soomaaliya niyahow alxamdulillah horta meeshii aan shalay joognay 93 iyo labada meeshan joognay iimaanka maanta meeshan joogno waa farqi dheer baa u dhaxeeyo waqti fogno waa ka soo wareegatay dad fara badan waa ku laadeen dad fara badan oo u dhashan marka Soomaaliya maartay walow aan dowladnimada ku galaadsanin oo de aan magaranaysaa noqonin nin weyn oo 20 jir aan ku noqonin haddana wixii hore aan u haysanay wax u eka damaanta ma haysano laakiin wadadeedii baan haynaa especially dowladihii Soomaaliya Soomaal markii la dhahaa waxaan u malaynayaa dowladnimada meesha waxa keenay wuxuu ahaa Abdullahi Yusuf oo magaalada waxa ka horeeyay dowladda Cabdi Qaasim baa ka horeeyay laakiin Cabdi Qaasim waxaad moodaa in la diido magaalada Muqdisho laga diido dadkii ay diideen Abdullahi laakiin xoog buu ku soo galay meesha asagoo ciidamada shisheeye wato wixii doona waxa lagu laayo dad fara badan baa ku laaday ugu baabay waxa ka dhashay muxuu ahaa waxa ka dhashay xarakada shabaab ka dhashay maxaakiim baa ka wax badan baa ka dhashay laakiin hadda maanta meel fiican bay maraysaa Soomaaliya waxay maraysaa meel aan anigu kana soo hamiyay inaan doorashadeeda bal imaado bay maraysaa waana mahadsan yihiin dadkii ka soo shaqeeyay iyo dawladii ka soo shaqeeyay inta waa mahadsan yihiin magaalada Muqdisho ma sha Allah
sida dadka ay u marayaan ma ahana markaa qurbaha joogto waxa lagaaga dhigayaa meel saacadii kun qof ee nafta ku go'aysa lagaaga dhigayaa laakiin markaa timaado de malkamad meel kugu dhaafaya ma laha adoo New York jooga waxbada kugu dhacaysa muxuu ahaa adiga oo Minnesota jooga adoo Mexico jooga waxbada kugu dhacaysa marka macnaha caasimadaha caalamka la qabtaa shidooyinka yararka ah oo mar walba dhacayo balse waxaan dhihi karaa meel 89% aan dhihi karaa amni weeyaan su'aal kale haddaan ku weydiiyo siyaasi aragti noocee ah ka haysatay markaad joogtay qurbaha laga yaabay in qayb ka tahay dadka aragtida leh oo wax qoro ama internet wax ka baaro aragti noocee ka haysatay dalka ahaantii horta aniga muxuu ahaa 2012 wixii ka dambeeyay Soomaaliya influence badan baan ku lahaa walow influence-ii ugu badnaa Kismaayo xaggeeda 2016 17 oo sanadkii ugu dambeeyay ahaa oo la igu xiray Kismaayo xabsi aan ku aaday لأن أنا وفد هجامني ودنك أسوأ ودنا محوها دولها أن قنية للجنة إن أقصى قادنا محوها إلا عشان كنت نرد دواء والسنة لبعض كنت تدوي طبعا كدواء كان الله بإلا دعاء ديدني مركب حالي لكم أخذنا دواء أن إلا دعاء ما أقرأنا أنا حبس هلا ديزيد تمبرين كحرنين مركب حقا مركب وحنا كده بيبا وحابة يقول على تماشن إنه أبغى إزبدل ذكر الشعب كان مساكين تأه adigii wax dad adoo u soo tuugsaday wax u keenay qofkii ka hor istaagay de wuxuu asaga leeyahay ama wuxuu ka qaaday oo canshuur dib ugu macelinay marka mana aha Jubbaland kaliya dhibaatada haysata laakiin Soomaaliya guud ahaan baad waxa mudaabo meel kasta oo maamul ka jiro maamulada Soomaaliya maanta anigu guud ahaan markaan dadka shacabka Soomaalida fiiriyo shacab fiican way la xukumi karo laakiin siyaasiyiinta ama dadka markaas iyada maamulada qabto dad tuugay u badan yihiin oo raba inay hal sano ku taajiraan ama inay maalmo gudahooda ku taajiraan oo dabaqeed dhistaan waxaan arkaysaa nin sanad ibar ama 2 sano shaqeynay lagu leeyahay oo intaas soo bildhime iskale Nairobi guriga ka gatay inta guriga dadka maya dadka percentage-ka actually dadka ma wada xumo siyaasiyiinta especially kuwa marka mar waliba maamulada qabto dad wanaagsan way ku jiraan laakiin Soomaalida dhaqankeeda ah meel kasta tagto harta inay maalin ku taajirto inta kaliya ma aha hataa Mareykanka waxa ugu badan oo haysta dhibkaas waayaan maalin waxa loo xirxirayaa Soomaalida corruption baa loo xirxirayaa marka dal waliba tagaan Soomaalida macnaha dad waxaad moodaa oo mar waliba jecel inay dhaqso hanti yeeshaan rabaan marka ciladaha badan waxyaabaha keenaya intaasaa kamid ah baahida faraha badan baa keenayso iyo colaadda aan soo marnay marka laakiin sadab ahaantii magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya sida loo maraynayo ma aha meel amni uu ka jiro nabad ka jirto hal dhibaato anaga qurbaha lagu haysto meeshan kuma arag dhabahantii dhibaatada qurbaha lagu haysto waxa waaye dadka qurbaha joogo waxa laga yaabaa dad magaalada isla degan hataa inaysan isduugin baa suuragal qabyaalad darteeda laakiin meeshan marka timaado qofka hataa ma dhihi kartid wax isweydiinaya arki maysid oo wax isku dhibaateynaya ma arkaysid marka xogaa qurbaha ku yara hartay qabaa'ilkana si qaldan bay weligood u isticmaalayaan Soomaalida iyadoo awalba ahayd in la isku garto iyo taariif aayad quraanka ahayd mar waliba waxay jecel yihiin isku dhibaateeyaan marka waa qayb ka mid ah corruption-ka waaye laakiin insha Allah kulli waxaan u maleynayaa haddii dalkan sida hadda uu ku socdo ku sii socdo in meel fiican la gaari doono u maleynayaa insha Allah waa gartay dhanka kale muddo dheer yani dalka ka maqneed waana xogo badan ka heesa saa ii sheegtay ama influence ku tahay yani qof xog badan ka hayata dawladihii dalka soo maray laga soo bilaabo Cabdiqaasin ilaa Cabdullaahi Yuusuf ilaa Xasan Sheekh ilaa Sheekh Shariif marxaladaas qaabka iskugu dhiibeen oo qorisu dhiibgaas iyo dawladnimadaas iyo hanka la soo gaarsiiyay sida u aragtaa siyaasi ما شاء الله ولو عبد الله وصل حلقي سنة ميسنين ما دام عندما شيء ودنك سوق لي وصدق سنة جودي هذا الوتوري شيخ شريف ليست حبوب بالله ويومين في عنه وقروح بدن بو كاني حسن شيخ صدق كرمال قروح بدن بو كاني هر يدو ورجل صدحات يدو لو بلنسية هاي وحلك إسكوريجي وحنيكرا وديمقراطية نوع أول سنة أنا لوي قانون عالم كنا ما ح 10 ولا قبرت مركز سياسي والله وح 10 laga baranaya waxa waaye qof waliba xilka inuu wareegtay yahay baa horta 10 kooda la baranaya shakhsi waliba in kursiga uu ku fadhiyo xilligu uu ku fadhiyo inuu sumcad abuurto haboon mooyaan inuu dhaqaale abuurto ma haboono maamuladii marka kala dambeeyay waxaad moodaa maamul waliba mid u socday inuu sumcad abuuro inay yar tahay nin waliba uu abuurayo kaliya dhaqaale inuu abuurto isku dayay marka waxyaabaha aan dhahay waa dadka badood waxaad moodaa marka ninka madaxda ah uu corruptionist yahay oo asagana uu leeyahay corruption yaa la suubineen
kan u hooseeyana la leeyahay corruption baa lagu qabtay kan dhaxana uu leeyahay kan hoosaan corruption ku qabtay xogaa marka waxaad moodaa adigu dowladii hore laakiin dowladan hadda anigu tan waxaan ku amaanaya waxa waaye at least waxaan dhihi karaa 55% transparency-geeda xogaa waa fiican yahay walow aanan arkin wasiirro xabsi loo dhigay iyo maamulaad fara badan kama arag dhab ahaanta magaalada muqdisho intaan joogay waxaaba dhihi kartaaba meel waxa weeye maamulna uu ka jiro oo dee dowlad ay joogto dhab ahaantii laakiin haddana aad moodo dowlad kooban inay tahay oo hal meel kaliya ku kooban dowladnimada aysan baahsanayn hadday maamul noqon lahayd iyo dhinac waliba wax kaliya oo shaqaynaya arka waxa weeye ciidamada dareeska labisan aad ay u mahadsan yihiin meel waliba ayagaa taagan laakiinse degmooyin ha ahaadaan ama gobol ha ahaadaan ama muxuu ahaa dowladda federaalka ha ahaato shaqo badan oo hadda arkayno ma laha waxaad moodaa marka dalka in mar waliba tusaale ahaan for the last 2 weeks hadda magaalada muqdisho waa xayiran tahay macnaha wax kala socda ma laha ra-iisul wasaaraha markuu galmudug aaday baa shaqo ugu dambeysay dalka marka anoo koyta ah haddii aan dareemo magaalada ku cusub in ra-iisul wasaarihii dowladda ay raacday haddaan dareemay ama madaxweynaha markuu safro dowladnimada ay raacayso maxaa ula jeedaa siyaasi yani dowladnimada ma shaqeynayso ama adeegyada istaaga maxaa ula jeedaa waxaa ula jeedaa waxa waaye xafiisyada wasaaradaha meelo badan baan tago wasaarada ah waxaad moodaa marka in badanaa ay codla yihiin oo 2 ama 3 qof kaliya ay fadhidaan oo ilmaha yaryar meesha ka shaqeynaya wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo agaasimo guud agaasimo waxaas oo dhan lagama yaqaan meesha marka waa xilliga uu magaalanaysa ra-iisul wasaaraha hadduu maqan yahayna dowladnimada asay raacaysaa hadduu joogana asay la imaanaysaa marka hadda markuu ra-iisul wasaaraha soo noqday dowladnimada xoogaa hadda waxaad moodaa in la yara dareemayo oo xafiisya qaarkooda ay yara furan yihiin marka waa dowlad su-aal kale haddaan ku weydiiyo maxamedow 3 sano oo madaxweynaha qaranka joogaan farmaajo oo bilo un ka dhiman tahay laakiin 1 sano un si guud u dhiman 3 sano dowladdan anagu og wax badan inay qabatay haddana dhaliilo way yeelan kartaa bal adiga sidee kula muuqataa dowladdan wallaahi maasha allah 3 sano dowlad joogto waxaaba horta number 1 ay ku amaanan yihiin 3 sano 3 ra-iisul wasaare la bedeli jiray madaxweynaha marka ballantii uu naga qaaday anigu waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadkii maraykanka uu oleynayay hadday dhaqaale noqon lahayd in loo gurbiyo hadday noqon lahayd in la taageero dadkii uu oleynayaan ka mid ahaa ilaa lamsaarkiisii ayaan inta imaaday waxyaabihii uu naga ballan qaadayna waxaan dhihi karaa 80% wuu fuliyey waxaa number 1 ka ah in uu dowlad hufan keeni doono waana keenay inuu keeni doono ra-iisul wasaare wanaagsan oo asaga shaqo badan uu keenay in asaga laakiin wadooyinka sidii u xiran yihiin in asaga in taas gobolka banaadir shaqo ku leh dowladda federaalka wax shaqo kuma laha waxna dowladda federaalka shaqadeeda iskale waxna gobolka banaadir baa shaqada iskale markii la yiraahdo magaalada muqdisho ee lagu nool yahay gobernatoor ay leedahay gudoomiyaha gobol bay leedahay gudoomiyaha gobolka asaga mas'uul ka ah shacabkaas meesha wasiir amniga waa jira oo dhanka dowladda xukuumadii ka socday laakiin mostly gudoomiyaha gobolka banaadir asaga laga rabaa amniga magaalada inuu gacanta ku qabto inuu wadooyinka furfurna asaga laga rabaa waa runta shacabka magaalada muqdisho shacab aad u dhiban waaye dhab ahaantii waxaaba laga yaabaa saaki adoo ka soo baxay anaa aan luwada ugu dhacday anoo xaafadda ka soo baxay oo isla aad galbatid ayaa wadooyinka dhinaga xirxirmeen marka waxay noqonaysaa haddaad u socotay cabdilcasiis inaad hadda iyo kow iyo wadadaas bakaaraha kor soo marto oo aad kaaraan ka soo gashay noqonaysaa marka dadka magaalada waa dhiban yihiin waxaadna moodaa sidii loo jooga qofli lagu qabanaya mararka qaar waxaa dhici karta hataa qofka ani dhowr habeen ay ugu dhacday oo aan xaafadeeda u galban hotel iska seexday marka dambe waxaana keenaya waxaa waaye mas-uuliyadda cid ay saaran tahay hadda lama yaqaano amniga iyo maamulka gobolka banaadir miyay saaran tahay mise waxay saaran tahay dowladda federaalka wasiirka amniga ay saaran tahay marka xoogaa waxaa habboonaan lahayd iyada lafsad ahaanteeda bal in dib loogu noqdo dowladnimada oo awoodaha loo kala bayaaniyo oo la dhaha gobolka banaadir amniga iyo bulshadan intaan laag iyo wixii ka soo baxa iyo canshuurihii iyo wixii idinka lagu xisaabtama in la yiraahdo wasiirka amnigana la dhaha adigu waxaad noqonaysaa supervisorka guud oo wixii marka iyada ah kormeeriya noqonaysaa laakiin xoogaa waxaad moodaa isku dhaxyaac inuu jiro oo dhankaas xagaas ah laakiin dhab ahaantii maxaa cabdullaahi farmaajo ana waxaan ku ammaanaya waxa waaye in dalkan
meeqaamkiisa uu kor u soo celiyey hataa sharafkii iyo cizigii Soomaalida ay ku lahayd caalamka intiisa kale way soo laabatay waayo Soomaalida badooda waxaan ka arkaa hadda markay dibadaha wareegayaan oo kale dawladaha hataa dariska markii la wareegayo sidii hore loola dhaqmayo maanta loolama dhaqmayo dawlad rasmi inaan leenahay baan loola dhaqmayaa walow muxuu ahaa wadamo qaarkooda aysan ixtiraamaynin heshiis kastoo la dhigto sida tusaale ahaan hadda Kenya oo kale asaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta waxay isku ogaayeen in aan wajeer la marin laakiin hadda waxaad moodaa in tii dib u soo celiyay inkastoo de pressure uu ku saarayo dalka arrimaha badan la aligooda uu ku saarayo laakiin Soomaalida dhab ahaantii meeqaam ahaan markii la yiraahdo maxaa Abdullahi Farmaajo sumcaddii dalka iyo dadka dib u soo celiyay su'aal kale hadda ku weydiiyo رئيس وزراء dalka soo maray iyo madaxweynaha tira 3 jeer in ka badan rئيس وزراء la bedeli jiray madaxweynaha rئيس وزراء muddo dheer ay wada joogaan oo 3 sano oo waqti yar ka dhiman ay wada dhameysteen bal hanaankaas bal ka waran horta kuwii hore iyo kuwan farqi weyn baa u dhaxeeyo rئيس وزراء iyo madaxweynaha waa dad meesha u socdaan ogeeyaan dadku xisaabtamaya ma aha shilimaad yar iyo account yar oo la jabsaday iyo dadku xisaabtamay maaha waa dad hamigooda sareeyo oo leh dalkan bal meel gaarsiiya history dad taariikh doon waay halka kuwii hore dhaqaale doon ay ahaayeen laakiin mooshiga wax furan oo cilado jira lagu saxlay waa kaliya ma ahine wax dawladnimo lagu rido ama maaha lagu duminay kan laakiin hadda mooshin waa la geeyay mooshinada la geeyo waa waxyaabihii hore aan uga hadalnay oo ah in dastuurka dib loo saxo soo dastuurka markii la geynayo warqada la geynayaa mooshin la yiraahdo horta oo ah dastuurka aan ku saxno wasiir loo yeero kale oo shaqadiisa la rabo in muxuu ahaa su'aal laga weydiiyo is a part of motion waaye marka inkastoo laakiin annaga sanadihii hadda ugu dambeeyay dawladda ka horeysay motion dhan baan nacnayba sababtoo motion dhan wuxuu noqday wax lagu dumiyo wax lagu dhismo ahayn laakiin hadda dawladda hadda jirta motionadeeda wax lagu dhiso weeyaan aragti kale oo siyaasi waxa laga heystaa oo xisbiyada in warqado ay soo saaraan ama war saxaafadeed ay soo saaraan ama yaani wax uu soo saaraan oo dawladda ku saxan ama wax ku taageeraan ama wax ku diidaan ama wax ku mucaaradaan intaba adduunweynaha ka jirta adduunweynahana kala midna axsaabta siyaasadeed ilaa hadda waxa ogsoonahay in qaarkood la caburi in hal karin hoteelada shirar jira ay ku qabsan karin meel walba dad fagaara inay kaga qodbayaan rabo yaani laga hor istaago arrinkaas adiga si cad ma u dafireen aniga waxaan u hal maada aaminsana okay asxaab siyaasi marka tahay oo xisbi u yahay xisbiga hadii aad qabiilkaada ku kacnayso xisbi ma aha laakiin xisbiga marka aad shacabkaada aad ku muujinayso taageeradooda waxaan dhihi karaa wax loo qaataan weeyaan laakiin xisbigan jifadeeda kaliya iyo aniga iskale muxuu ahaa jifadeeda maalintan doona ku kicinaya dawladda maalintan doona ku dhawrjibinaya waxaan doona ku suubinaya haday tahay aniga ma aaminsanahay iyada waxaan aaminsanahay inaysan taa cumburan ahayn dawladda ku saxan tahay aaminsanahay way su'aalaheena dhanka kale hadaa u weecino arinta Kismaayo dhowr su'aal la ka weydiiyay siyaasi hadda xaaladda guud ee Kismaayo waa sidee anaga og in yaani afar madaxweyne sheegatay oo Cabdirashiid Xiddi kamid ahaa nin xildhibaan Seeraar kamid ahaa أحمد مدوي قيب كاها هذا يقول هذا مشرح عيد قيب كاهد بالكور أنا كاس هرتا وحالة ضغوط رجال معنا كمان تسدى إبتهاي لبقى هانتي شعب قلت كسماء واللي بني هاي شعب كسماء اللي كان ما أنت مقاب سنة سديت سنة اللي كان سوها هشتي ومثل عبوريو مثل الدلو مثل الترحيل اللي جي هذا أنا هسا هات annaga waxa u soo baxnay oo nin waliba uu u soo istaagay waxa waaye bal inaan horta dalka xor u nahay marka koowaad oo aan tartami karno laakiin meesha waxa ka dhacday in awooddeeda isticmaalaya qof ila tartami kara malaha ka dhacday marka taasa keenayso in afar iyo maxaa ahaa 10 qof ay madaxweynenimo sheegato markii ugu horeysana ma aha tii ka horeysay oo muxuu ahaa dagaal buu ka riday Trump ugu hor madaxweyne meeshaas waxa u ridaa macnaha ka badan la sheeganaya hadii meesha qas u yimaado qofka haduu diido sharaxiinta masaqo dad oo soo baxayo ta hadii inta hadda musharax ku 22 musharax waa 22 hadii dhahan mid kasta madaxweyne haduu dhaha xaq ay u leeyihiin sababtoo ah qofkii meesha ka talinayay 8 sano kamil lagu soo dulqaatay oo tookadii ku horeysay arbulashad noocan oo kale uu ku qaatay hadii lagu dulqaato mar waliba wuxuu
wuxuu ka dhigtay wax access oo asaga uu leeyahay oo kale ka dhigtay meesha marka qof walba marka xaq uu leeyahay haddii meesha foodo qofka uu ka dhigo oo sharciga uu raaci waayo qof walba marka wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaa madaxweyne ah ilaa nin walba jifadiisa madaxweyne uu noqonaya marka iyada ama qofka marka asaga aaminsan madaxweyne uu noqonaya kol cunugiisa yarka uu aaminsan yahay uu dhaa madaxweyne uu noqonaya laakiinse dhab ahaantii waxa waaye dastuurka Jubbaland baa meesha doorasho kama dhicin dastuurka Jubbaland waa la hareer maray kan dowladda federaalka ee ku aadan maamul goboleedyada waa la hareer maray marka wax doorasho ka dhacday ma laha waa kow labo markii ugu horeysay waxa la yiri soodin wararta abba loo celiyaa baa Soomaalida tiraha macnaha ka wada waxa waaye haddii markii hore waxay qaldameen waa in dib laga saxaa hadda Jubbaland insha Allah waxaan rajaynayaa dowladda federaalka iyo muxuu ahaa shacabweynaha reer Jubbaland in mar dhow aan insha Allah fadhi isugu iman doono oo aniga oo ku hadlayo afhayeenkan oo ah golaha badbaadada midnimada Jubbaland ma garanaysaa inaan rabno bal in gobol dib u heshiisiin dib loo dhigo awood qaybsigana dib loogu laabto waayo Jubbaland waxaa degan 38 qabiil baa degan 1993 heshiiskii maxaa Ibrahim Liqliqato iyo muxuu ahaa Colonel Abbas Maxamed Cadow iyo Morgan iyo meesha ay ku galayeen oo nabadda inta la qaadanayeen 23 qabiil baa saxeexday oo deegaankaas inay wada leeyihiin ah marka waxaad moodaa xoogaa xagga awood qaybsiga in uu iska ahaa meel la xoogay madaxweynihii xilliga jiran oo u feermeeyay dadkaas oo dhan inuu hal qof mas'uul ka noqdo waana arrin qaldan weeyaan oo Soomaalimadana aan ku habboonayn Islaamnimadana aan ku habboonayn waayo islaamka lafsadaantiisa wuxuu farayaa qofka amiirul muuminiinka lafsadaantiisa in la xisaabtamo marka isla xisaabtan ma jirin dawladda hor istaagaysa ma jirin magaalada Muqdisho waxaa tuuran muxuu dadkii laga soo buriyay meesha iyada ah oo la soo tarxiilay hadda waxa ka hadlaysa dawladda federaalka caburana ku wada meesha dadka la soo tarxiilay gabdhaha markii la kufsado oo maartay muxuu ahaa ay rinto gabadha markay tagto dacwooto dhaado warana waa rimana waa la kufsado markay tala waa la soo tarxiilaya magaalada Muqdisho hadda xaafad meeshan waxa la soo tusiyay 14 gabdhood oo mid waliba wiil ay wadato hadana gabar aysan ahayn 14 wiil wato la soo tusiyay magaalada Kismaayo lagu soo kufsado la soo tarxiilay bal adoo walaasha la kufsaday misana tarxiil loogu daray aduguna aadan hadli karin sidee baad dareemi lahayd arrin kullu xarun badan weeyaan arrinta kufsiga cadeen ma loo hayaa siyaasi dhihiyaaba joogay wiilashii ay dhaleen baa wataan 3 jir 4 jir weeyaan marka cadeen ma baahna tan ilmihii baa la keenayaa waa very simple muxuu ahaa wax hadana ay og tahay international community waxay og yihiin weeyaan أنا أيام دوتون أمنستي انترناشونال يمحوها هيومن رايت قوليه كسعودي UN Security Council كله ولا كل مي محوها وحي أخبارات ورئيسيين واسيي وحنا من سنة هاي ما شهر دولشين يكون غندونتو هدو عليه هذا وحنا نملك الدولة الفدرالية الصومالية أنا هذا وحنا أساسني أورو لي هذا قرب البادي من مدينة جبلان waxaan uga dambeynaa dalka sideeda banaanba waxaan uga dambeynaa dawladda federaalka Soomaaliya waxaan rabnaa marka dawladda federaalka Soomaaliya inay wax saxdo si wax ku saxaysa waa in gobol dib u heshiisiin dib loo dhigo Soomaalida si wax ku qaybsan jirto 4.5 wax lagu qaybsado laakiin boobkii hore u dhacaysan uu dhicin okay haddii marka dhameystiro haddii marka dawladda federaalka ah ay arrinta iyada baalmarto anaga ka Jubbaland ahaan waa isku tashanay waxaan isugu tashanay inaynu anaga dawlad dhisano ilaa dawladda haddii kaalinkeeda ka soo bixi weyso waxaa kaloo maqlaynay xan ah maaragtay dawladda muxuu ahaa iyo Axmed waxa laga yaabaa in international community soo galo wada hadlaan haddii Axmed ninka la yiraahdo uu dib u soo noqdo dalkan foodo dib ugu noqonayaa muxuu ahaa dagaalka qabaa'ilka dib u bilaabanaya marka taas waa ka digaynaa iyada lafsad ahaanteeda su'aal kale haddaan ku weydiiyo doorashadii Jubbaland way dhacday dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka waxay sheegtay inay aqoonsaneen doorashadaas oo saxaafadeeda soo saartay Simbali marka waxa ula jeednaa doorashadaas meesha ka dhacday kadib Axmed Madow haddana wuu hadlay wuxuu dhahay aniga madaxda qaranka dawladda hana la wada hadal siiyo dawladda ilaa hadda arrintaas ma ka hadleen soo yani uma muuqato marka ninkaas asigana howlihiisii nolol maalmeedkii shaqada dawladnimada inuu meesha ka wato dawladana arrinka ka aamusnaato horta dawladda inay ka aamusnaato waa qalad أنا waxaan qabaa dawladda wadankan legitimacy ay haysato adduunka loo aqoonsan yahay dawladda waa inay soo qabataa Axmed Madoobe oo xabsiga soo dhigtaa sida Cabdirasiis Janan xabsiga loo soo dhigay
way fududahay ciidamada danab baa joogo ciidamada caalam beesha caalam ka socda Kismaayo joogo ciidamada Mareykanka joogo waxa joogo kuwa Ethiopian ah joogo kuwa Kenyan joogo waa in la soo qabtaa asaga lafsad ahaantiisa waxa loo soo qabanaa dambiilo waay dambiilo weeyaan dadku cuburanayay laynay hadda lafsad ahaanteeda hadaladiisi waxa ku jiray tilaabad baan qaadaya oo ah magaaladan islama joogayaan intaasoo madaxweyne islama joogayaan wuxuu rabaa inuu weeraro nimankan meesha joogo xidig iyo saaraan inuu weeraro rabaa asoo awlaba dadka hore u laynay hadduu ku goodinay dad baan weeranaya hal qof oo reer Kismaayo ah ama reer Jubbaland ah hadii magaalada Kismaayo wax ku gaaraan asaa mas'uulka ah asa kaliya marka mas'uuliyadda ma qaadanayo kuwa ka hoos shaqeeyo tusaalaan ku siinaya Idi Amin Dada markuu ninka la yiraahdo Aboke uu ka tuuray Uganda oo uu ceeriyay wasiiradu soo qabtay waalay Ahmed marka kaligiis ma aha dad badan baa dambiyada iyada la galay oo wadanka la joogo oo afar la sac dhigta wax ugu sheegayo oo dhahaya adaa zicimka adaa uu amarkay ah adaa wadanka laga dambeeya farmaajo qeyr adaa ka wanaagsan oo ka fiican marka nin hataa la heshiin kara maaha ninkan nin oo hadii maanta la heshiis biri ku dilay waa marka qof biri ku dili doon maxaa u heshiinaysaa heshiis ma jiro waa dambiile dawladda federaalka waa inay soo qabato ninka asaga ah hadii ay soo qaban weyso dadka reer Jubbaland way isku tashanayaan hadii uu damcayno xidig iyo seeraar dagaal ku qaadanay hadda hal maadaan faraya Soomaalida dhan bay dhageysanayso dadka reer Jubbaland especially ciidamada Jubbaland joogo qabaa'ilada kala duwan ah hadii Axmed uu damca inuu weeraro xidig iyo seeraar ma kala dhaxgali kartaan Axmed Jifo ka dhashay seeraar Jifo ka dhashay muxuu ahaa ninka la yiraahdo xidig Jifo ka dhashay shacabka ka intiisa kale marqaati ka aada laakiin ha uga heelinina waa isaga filan yihiin nimanka ayaga hadii laakiinse dawladda federaalka iyada marka mas'uuliyadaas iskale hadii Axmed uu weeraro nimanka ayaga ah dawladda federaalka iyada hoosaysa nimanka ayaga ah laakiin siyaasi soo uma muuqan karto qof oo durbaankii colaada tumayso aday shakhsiyan uma muuqan kartid hadaa dhahdo saddexdaas jufee ka kala dhasheen hadii labadan weerarka ay la iskugu tagin soo yaani xataa u muuqato wareysiga inuu dhan nooga beeray asaga lafsad ahaantiisa ayaa wuxuu yiri meeshan ma joogayaan inta soo madaxweyne ma joogayaan marka waxaan uga digayaa shacab weynaha kale Jubbaland in colaad aysan shuqul ku lahayn ay lugta la galaan jubbooyinkii Kismaayo inta hadda maxay u baahan tahay in madaxweynenimo sheegtay dawladana macnaha doorasho la galay dawladana way diiday marka dawladdan hadda maxaa yaani la gudboon Jubbaland maxay u baahan tahay marka dawladda federaalka waxa la gudboon inay dawladda heshiisiina dhigto inay dambiileen soo qabato in awood qaybsiga Soomaalida dib loogu laabto waxaan u maleynayaa 45 casho ayuu rasaaraha dhex fadhiyay meesha leedahay Galmudug annaga reer Jubbaland ahaan waxaan xaq u leenahay intuu dhex fadhiyay Galmudug mid la eegan u leenahay ilaan ayaga naga mas'uul dawladnimada ayaga ka mas'uul dalka ayaga ulul amarka wadanka ah laakiin Jubbaland kor hore waxay sheegtay in dawladda xiriirkeeda jirtay sida hore u dhici jirtay dawlad goboleedyada dhammaan waxay dhigi jireen dawladda dhexe xiriirka u jirnay marka Kismaayo xiliyada doorashooyinka iyo waxa ka jireen dawladda iyo Jubbaland xiriirkeeda uu xumaa ما هذا دولة legitimacy oo jirta malaha fiiri dawladda waxay xiriirka u jiri kartaa hor dawladda federaalka xiriirka u jirno waa daro laba wadal ma meesha dadka waxa ka taliyo muxuu ahaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo qeyra ka taliyo daro dawladda xiriirka u jirno waxa waaye ilma abood ku caasinayo waa dambiile qofka asaga in xabsi la dhigo istaahila marka dawladda iyada dadka mas'uulka ah waa inay gogol dhigto waa inay dadka reer Jubbaland isu keento waa in awood qaybsiga dib loogu noqdo waa in Soomaalida ayaga oo la walaaleeyo muxuu ahaa xafbo asaga oo muxuu ahaa nin Soomaaliyeed ayuu dadkiisa u tanaasulay kan mid dadka u tanaasulay maaha dadka inuu laayo mooyaane marka anigu dawladda waxaan qabaa yaan loo jaxan nin cid kasto oo maalinka maanta Jubbaland saxdo oo inta reer Jubbaland dib u heshiisiinad gobol u dhigto dadka Jubbaland walaaleyso maanta ku guuleysato Semberi taariikhda qorayso waxayna noqon doonaan kuwa ku guuleysta 2020 gabagabadii wareysiga marayna siyaasi Maxamed Cali Yarow wax badan aan oo faa'iideyso ana ka mahad celinayna su'aal kale hadaa ku weydiiyay adi shakhsiyan waliba Jubbaland hadii madaxweyne ka islada madaxweyne malaha hadii laakiin la dhahaa nin waliba madaxweyne ayuu soo calaamad saaray dilaa aniga madaxweynaha aniga waa calaamad saaray xadigu waa calaamad saaray Sharar waa calaamad saaray Axmed waa calaamad saaray laakiin se annaga ma doonayn dhul fooda ah fooda waa ka soo daalnay 29 sano ku jirnay dagaal sokeeye iyo colaad waa ka soo daalnay annaga waxaan rabnaa legitimacy bataatanbo annaga reer Jubbaland haddaan nahay waxaan rabnaa dawladda in aan uga dambayno wax waliba waxaan rabnaa maamul goboleed dawladda hoos joogo
laakiin mar rabna maamul goboleed international community iyo dawladaha dariska iyo wax la soo saxiixdo waxaas waa sharafkii iyo karaamadii Soomaaliyeed dib u dhigaysa fariinta ugu dambaysa siyaasi marka wareysigana uu soo gabagabay fariinta ugu dambaysa anagoo haysan hal daqiiqo wax ka yar noo soo gabagabay ugu dambaysa waxa waaye waxaan leeyahay horta ummadda reer Jubbaland gacmaha isqabsadaan ha walaaloobaan durbaanka colaadeed oo dadka qaarkood ay naadinayaan ha laga gaabsado nabadgelyada waa shay qaali ah meel waliba la joogo nabadgelyada ma garanaysaa hal dhowro dalkan waxaan leeyahay dawladda Soomaaliyeed dib dawladda Soomaaliyeed hal looga dambeeyo intaasaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waana mahadsantahay waa hagaag daawadeer intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno barnaamijkeena kulanka SBC toddobaadkan waxaa idin soo saaray adina socodsiinay anigoo Cabdirashiid Sandheer ah waxaan u mahad celinayaa Maxamed Cali Yarow oo ah siyaasi Soomaaliyeed muddo dheerna siyaasadda ku soo jiray kolna qayb ka ahaa musharaxiinta isu soo taagay hanka musharaxnimo ee madaxweynaha Jubbaland Muqtaar Cabdi Aadan ayaa dhanka kaamirooyinka iga caawiyay dhanka farsamadana Cumar Buule ayaa barnaamijka ka qaabiyay barnaamijkan kankiisa xiga inta ku kulmayno daawadayaal sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu siyaasi ma santahay. Thank you.